ku xidhnow goor iyo ayaan warbaahinta waaga cusub iyadoo aan qofna salaamin hareerahana eegin bay qolkeedii halheel ugu gudubtay sariirtay isku halgaaday buugaagtii ay sidatayna koomadiinka dushiisay naxariis la'aan ku tuurtay qaar baa dhulka ku daatay weligoodba ha daateen yaa u jaxanjaxaya yaa urursanaya addimadeedii baabay aruurin kari la'dahay waa taas labadeedii lugood mid sariirta ku dul xoortay iyadoo kabteedii wadata tii kale oo kabtii iskeed uga dhacdayna waxay ka lulataa sariirta qarkeeda bawdada waxaa ceege adag ku haya surwaalka kaakiga ah ee dugsiga sare weligiis baa ha ku hayo yaa ka fujinaya yaaba ka xanuunsanaya haddaad isha kor ula sii raacdid waxaad arkaysaa shaati cad oo gacmogaab ah oo hoosta ka soo riixayaan laba naas oo dhowaan kobcay waxaa la moodaa inay ka cabanayaan shaatiga turriisha la'aantiisa loogu dhejiyey weligoodba ha ka cawdeen yaa dulman ma iyaga mise guluusyada la moodo inay sii go'ayaan kii doonaba ha dulmanaado yaa isugu tegaaya qofkii u soo galaa wuxuu moodi lahaa ruux suuxsan ama mar hore gam'ay waa runoo indhaha way dansatay laakiinse hurdo warkeed ma jiro indhaheeda baryahan hurdo sooma booqan intay neef culus xoog weyn ku soo jiidday bay xoog ka sii weyn ku soo celisay sidii iyadoo doonaysa inay ku soo xaaqdo dhibaatooyinka maskaxdeeda rasaysan waxay la ahayd dhibaatooyinkii ifka laga uumay oo idil ahaantood inay iyada dul saaran yihiin qof kasta dhibaatadiisaa la culus isagaana isla jir leh noloshaaba sidaa ah markay indhaha isku qabsatay bay maskaxdeedu isla hadalkii laba jibbaartay dhib badanaa saan maan ku joogi karaa ilaahayow sideen wax yeelaa iskoolkaanaaba iigu daran wax maan barashow ka gaaraa anigaba waa dhibaataysanahaye macallinkaasaan bannacay khabiid waaye xisaabtiisa ma la fahmi karo maxay nooga beddeleen macallinkeennii fiicnaay sabdi imtixaan waaye kuma lahoo sabdi ma ahane maantana keen imtixaan waaba la iiga daran yahee iskoolkaan mar lee ma la xidho waa ka neebsa lahaaye laakiin qof minankaas joogto maa neebsahaysid dhib maa dhibkaaga roon aan waa yaabay dadkan qof uula hadasho ma la waayo oo runta u sheegto maxaa la ii khasbaa marrabi qasab miyaa cawo marrabi maalin marrabi waalidaa la idinka badiyey ammaan lee isiiya waalid oo ilmihiisa xaasid u ah maa la soo arkay haddii iga naxaysiin wax dhibkayga ah maa igu qasbi lahaydeen qofkii aniga rabo ma ii diidi lahayn sidiin rabo lee ii yeeli lahaydeen nasiib badanaa qof xor ah sahre yuusuf camal axmed saacaddan intees joogaa xafiiskii aas fadhiyaa maxaan u soo mari waaye waa u sheegaa cawada wixiis raba ha dhaho dhibkaan ma ku jiri karo maya ma u sheegi karo ceeb waaye mushkilad kalaa imaa haysa lacalla haddii waxaa ka kala goysay shaqar iridka ka soo yeertay waxay dareentay qof saan culus oo u soo galay indhahaase uma kala furine way ismoogaysiisay aad bay u nabcayd in cidi u soo gasho waxay la ahayd culays ka daran kii ay hore u dareemaysay maanafay maxaa ku daaray maana waa codkii macaanaa ee hooyadeed weli indhaha ma kala furin farna ma dhaqaajin intay hooyo ku soo booddo oo dhexda isaga duubto labada dhaban kama dhunkan sidii caadada u ahaan jirtay markii ay dugsiga ka timaaddo maanadeedii ma aha habartii oo qalbi jabsan xaaladdeedana qadarinaysa ayaa intay ku soo dhowaatay codkiina u soo dabcisay oo raahdii hore u raacisay joogsahay gabartay dharka iska beddel muggoo qadayside qadadii waa kaa qadoobaysaaye qadaqadadiina marrabiye ammaan aan miiga helo ayay si kulul ula soo boodday markii hooyadeed hadalkii ku celcelisay markay tidhi kadib bay la soo xumaatay oo raahdaas aan asluubta lahayn ee iskeed uga soo fakatay kamase toobad keenin ay cadday intay cabbaar iyadoo amakaag afka sacabka ku haysa ku dheegagtay ayay dib uga soo laabatay iyadoo cagaha jiidaysa sidii abaanduulo goob dagaal ku soo guul darraystay waa adduun cimrigaa dheeraada geel dhalaayana waa ku tusaa maanafay baa qofta sidaadii u dambaysay aaway baarinimadeedii iyo dheganweelkeedii aaway qosolkii iyo qalbi furnaantii aaway firfircoonidii iyo sheekadii macaaneed aaway xishoodkii iyo xushmad ilaalintii aaway dabeecaddii dhan walba dahabka ka ahayd ee xamarweyn oo dhan caanka uga noqotay habartii gabari ka qalloocatana ku halqabsan jirtay haddii nasiib leeyahay maanafay camalaan dhali lahay ay cadday wax ku cusub ma ahayn gabadheedu qadadii ay maalintaas ku diidday iyo xushmad darradii ay ugu jawaabtay
horay buu yaabkii uga dhammaaday baryahan oo dhan bay kala kulmaysay waxaas iyo wax ka daran xanaaqu sankuu ka saaran yahay erey kastoo qof qoyska ka mid ahi ku yidhaahdo way dhibsanaysaa hadduu xun yahay iyo hadduusan yahayba wuxuu la yeelanayaa dhadhan qaraar markaasay ama ka xanaaqaysaa ama xarrago adag isku celinaysaa uurkana ka gubanaysaa xataa sheekada caadiga ah ee xubnaha qoysku ku sheekaysanayaan hadday goobjoog u tahay way dhibsanaysaa waxay la noqonaysaa qowqow aan dhadhan lahayn markaasay uurka iska odhanaysaa yaa iga aamusiya marmarna intay ka kacday qol cidlaa isku xuraysaa ee ku fakaraysaa cunto u dhadhantaa goor ugu dambaysay garan mayso wakhtiga cuntada markuu u soo dhowaado way ka naxdaa markii hooyadeed ku qasabto ayay korka ka taataabataa marna way ka dhuumataa si aan loogu qasbin waa taa baaba'day ee dherarkeedii ka yaraatay aaway bidicdeedii indhuhu kala boobi jireen rag badan oo u soo baratamayana ku hungoobeen waa taas ilgo'dee abaarsatay sidii ubax gu' barwaaqo koriyey ka dibse dabayl xagaa dharbaaxooyin naxariis la'aaneed ku dhufatay waa kaaf iyo kala dheeri maanafaydan madoobaatay ee murugo awgeed maryihii iska beddeli weyday iyo tii 5 bilood ka hor meeshii ay soo gashaba muusikada farxadda ah u yeeri jirtay dunidoo dhanna quruxda iyo qosolka ka buuxin jirtay bal isu fiiri saaka iyo subaxdii iyadoo sida dheemanta u hillaacaysa ay taagneed shaleema xamar horteeda subaxdaasi taariikhda maanafay meel weyn bay ka gashay intay ifka saaran tahayna maskaxdeeda ka go'i mayso markay in yar joogtaba way ku soo dhacdaa waxaa hor yimaada muuqaalkeedii ilqabadka lahaa ee marba gaari isu taagayey biyana ay ka sii jeesanaysay waxay qabtay dharkii dugsiga buugaagtiina gacantay ku haysatay waxay sugaysay tagsi dugsigeeda u sii dhoweeya tagsigii waa ku soo daahay iyadoo weli sugaysa ayay gadaasheeda ka maqashay cod aan ku cusbayn una caddayn oo ku soo qaylinaya maanafay alla waa iyadii dib bay u jalleecday isla markiina ku oroday markay aqoontay wey sahra ii warran abbaay waa la isku dhegay dhabannadaa la iska dhunkaday naa ii warran intay ka baxday baryahan allah shimaa isbukeen dambaysay 1 sana camal waa dhan tahay haye haddii shaqo la helo dadna la soo salaamaayo moohoo sahra qof xun baad noqotay maana maxaad igu imaan weysay waad og tahay anigaa guri firaaqaah keligay deggani cawadan kuu imaahaa waayahay caawaynu si fiican u sheekaysan doonnaa haddana shaqan ku ordayaa adiguna dugsi baad u socotaaye caawa 1 saac baan ku sugayaa ciddiina igu salaam yaa macaantay haya abbaaye jaawheer sahre yuusuf ballantaasi waxay ka ahayd afgobaadsi reer magaalnimo laakiin maanafay culays weyn bay la lahayd waana ay ka sii fakaraysay maalintii oo idin yaa u sheega booqashadaasi waxa ay u soo waddo yaa ogeysiiyey inay u horseedi doonto inqilaabkii ugu weynaa ee nolosheeda ku dhaca yaa uga diga inay noqon doonto albaab ay ka gasho tijaabadii ugu khatarsanayd ee soo marta tijaabo qaraar haddana macaan xanuun iyo xiise isku dhafan maanafay may ahayn gabdhaha habeenkii meeraysta inkastoo aan loo ilaalin sidii walaasheed iisha haddana dabeecaddeeduba ma ahayn gabdhaha bixbixidda jecel aabbaheed xaaji muumin kama shallaynin maqabiyannimadii uu ka daayey iyo waxbarashadii uu u oggolaaday wuxuu ku waana qaatay maqabiyannimadii lagu khasaaraye gabadhii ilmihiisa u weyneed iisha waxbarasho iyo mustaqbalba iisha way seegtay dhowrsanaantii gabarnimo ee aawadeed guriga loogu xabisay waxay noqotay biyo col loo dhaanshay 19 sano ayay ahayd maqabiyo guriga lagu ilaaliyo waxay ahayd gabar aad u qurux badan aadna loo jecel yahay xaafadda oo dhan waxaa looga sheekaysan jiray quruxdeeda caqligeeda dhowrsanaanteeda iyo miyirkeeda aabbaheed iyo hooyadeedba waxay u hayeen kalgacal xaddaafa wayna ku faani jireen dadku way ku cawriyi jireen uguna hambaliyayn jireen laxajeclada iyo hanweynida saa'idkaa ee loo qabay ayaa keentay ilaalinta dheeraadka ah iisha hal mar unbay xargagoosatay dib dambana gacan looguma dhigin jartii ay ku fakatay waxaa isla abaabulay naag fataalad ah iyo nin shabeelnaagood ah oo doonayey inuu dhowr habeen ku moodo dhowrkii habeen markay u dhammaadeenna ayuu mid cusub ka raadsaday iyadiina ku yidhi jaw amiiko ka buldheh cagta saar waddada suuqeeday hore u sii gashay waxay isu qaadatay sidii qof xabsi ka soo baxay ee macaanka xorriyadda la dhadhansiiyey diyaar uma ay ahayn inay xabsiga dib ugu laabato xornimo raadis ka sakow waxay u sii beeyidadinaysay baqdin ay gurigooda ku qabtay marba hadday dembiga intaas la eg gashay saaxiibbadii cusbaa
ee ay dhowrka beri ku baratay ayay beesheeda ka raacday liilalow baa lagu soo dhoweeyey abaadirow soo ururi inanta midhaa sooma ururiyo maanta qof kastoo qoyska ka mid ihi magaca iisha marka uu dhegtiisa ama maskaxdiisa ku soo dhaco wuu ku labalaboodaa korkana ka jiridhacoodaa xaaji muumin haddii cunto hor taallo wuu ka sii jeestaa iskana joojiyaa hooyadeed ay caddayna waaba muraala dilaacdaa sheeko socoto markii gabdho lagu soo hadal qaado xaaji muumin wuu naxaa warkana xertaa ama beddelaa wuxuu ka baqaa haddii la sii wadwado in marka dambe la yidhaahdo ka warran gabadhaadii suuqa gashay ama qof meel xun ku soo arkay intuu soo gocdo warbixin wadnaqabad ah wejiga uga fiiqo inkastuu dhowr sanno ka hor kacsideedii dhigay magaceedana warqadda qoyska ka tiray haddana sidaas ugama harin ilaa maanta dad baa uga tacsiyeeya ee boogtii ka dambeeya iisha waalidkeed waxay ku noqotay boog ceebeed oo aan ka harayn inta ay nool yihiin waa ciqaabkii aad ku mutaysateen dembigii aad iyada ka gasheen markii aad ka xaaraantimayseen waxbarashadii iyo dhexgalkii bulshada ayay xaajiga ku yidhaahdaan saaxiibbadii qaarkood taas ha garaysto ama yuu garaysane kolleybase mid buu ogaaday wuxuu hubsaday qof aan iyadu is-ilaalin inaan cidina ilaalin karaynin markaas ayuu jeexjeexay shukooyinkii uu ugu tala galay gabdhihiisa yaryar leyla iyo maanafay intuu dharkii dugsiga iyo buugaagba u gaday buu labadaba waxbarasho u diray leylo 3 sano ayay maanafay ka weyn tahay dugsigana waxay uga horraysay 2 sano markii maana dugsiga dhexe ka baxaysay bay leylana dugsiga kalkaaliyaasha caafimaadka ka baxday kaaliye takhtarna shaqo ku bilowday waxay isjeclaadeen ciise dheere oo 4 sano ka weynaa iyada ahna farsamo yaqaan ka shaqeeya mashruuca sahminta hawada dhibaato aan la soo koobi karaynin ayay ka soo mareen jacaylkoodaas iyo sidii ay qoyska gabadha uga heli lahaayeen oggolaasho guur markay ka waayeen bay isla dhuunteen kadibse waalidkii way maslaxeen waana la heshiiyey gargelyo fara badan kadib xaaji muumin inkastuu ka mid yahay ganacsatada yaryar haddana wuxuu uga duwan yahay fikradda qaladka ah ee ay qaarkood ka qabaan waxbarashada iyo shaqada dawladda waxa kale ee uu odayaasha da'diisa ay isku xaafadda yihiin uga duwan yahay sida ay u arkaan barbaarinta ubadka aragtiyaha qaarkood wuu la wadaagaa wuxuuse uga yara horreeyaa fahamka isbeddelka casriga ah ee dabeecadda dhallinyarada saaxiibbadiis ay habeenkii gidaarada xaafadda ku sheekaystaanna in badan ayay ku dhaliilaan gabdhihiisa uu dugsiga u dirtay ee dariiqyada shukola'aanta ku mara hase yeeshee waxaa xaalkaasi isbeddelay markii la arkay waddada leyla martay maanana ku socoto waalidiin badan waxay ka masayreen waxtarka ay leyla nafteeda reerkeeda iyo waalidkeedba u yeelatay iyo magaca ay bulshada ku dhex yeelatay xaafadda oo dhan markii qof madax xanuunaba waxaa la yidhaahdaa leyla ha la jeriyo dad badan ayaa markaas xaaji muumin ku dayday intay gabdhahoodii shukooyinkii ka xooreen bay dugsiyada u dirsadeen maanafay qorraxdoo aan dhicin bay isdhisid bilowday waxay isu diyaarisay sidii qof xaflad laga wacay waxay isleehayd sidii qof arrin muhiim ah fulinaysa muraayad weyn bay ishortaagtay kor iyo hoos bay iska eegtay keligeed baa iscajabisay ma mooga inay qurux badan tahay dad fara badan bay ka maqashay markay maqashaba hoos ahaan bay isugu bogtaa wax kastoo ay biddo inay qurux u kordhinayaan way ku dadaashaa iyadoo muraayadda eegaysa ayay marba dhan u dhaqaaqday intay abboosta uurka iska tiri bay saacaddii eegtay 7 oo rubuc dhimman bay ka akhrisay alla waan daahay bay hoos u tiri boorsadeedii bay armaajada dusheeda ka daftay jidka ay sii mari doontaa ayaa ku soo dhacay cabsi aan weynayn bayaa qac ku tiri waxa ay ka cabsanayso ma garanayso laakiin way cabsanaysaa 18 sano ee ay ifka joogtay weli wakhti habeena xuduudka xamarweyne kama bixin iyadoon dad la socon guriga saare yuusuf u dhiiso xamarweyne kama dheera waa dhammaadka waddada rooma saraha duugga ah ee xamar jajab ka bilaabato intay dariishad daaradda u jeeddo furtay bay hooyadeed halkii ay ku ogeyd hanqalloocsatay weli way fadhisaa jikada horteeday howl ku haysataa waxay jeclaysatay inay habartu meesha ka kacdo inay gudaha gasho ama bannaanka u baxdee deriska u laabato iyadoo u jeedda ma bixi karayso waxay ku furaysaa su'aalo ayaan u babac dhigi karaynin jawaabtoodana ku dhiiran karin intii ay labisanaysay albaabku hoos buu uga xidhnaa haddii lagu qabto qiilqiil bay geli lahayd
habartu may kacdo